السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ممل ودنيا كجوكتان اسكسونا نقد ونكسن أو ولي بحسالة وأنا جوا عبد الرحمن محمد إسماعيل كان يداوني سنو جابر جميل أوفيشال. هدي الله محسوب تعيسود هدي أتهرنا رجبتين واتكم مع سنت على جيل كعاديات بنكعة مهدي. وتهاي إن ورجينا يا إن مالين تادو أي تقرح بدن تهاي عفما نانو داوني إن شاء الله. رامر كوه رئيس إن هل كان أقوم مهد عليو سكالي لابا أنا أقوم مهد عليو أصحاب تقييمها عليه هل كان كوحرن مقال كي كهري رمتي آدي أدوسو في العليه. dhanka commentiga aad u soo buuxdaafiyay talooyinkooda iyo tusaalooyinkooda aadka u quruxda badnaa iyo waliba qaarkood dhiirigelinta aadka u quruxda badneed ay ii soo direen hay'adaha ugu maasantihiin boqolkiiba boqol runtii aniga wax muuqaal ah degdeg inaan ku sameeyo maana rabin laakiin xaqiiqda markii laga hadlo ilaahay ka sokow idinka ayaa sababteeda leh waayo waxaan dareemay dad badan oo garabkayga ah inay jiraan dad badan oo runtii farxaddeeda jecel dad badan oo murugteeda ka naxay inay halkan ku jiraan ayaan ogaaday oona dareemay waan idinkaga mahadcelinayaa runtii boqolkiiba boqol waana rajaynayaa dhammaantiin insha allahu tacaala muuqaalkan in si farxad leh idinku soo gaaro haddii aan halkaa uga baxo iyo mahadcelinta inkastoo aanan kusoo koobi karin hal fiideo mahadcelintiina iyo weliba daqiiqado kooban walow ay sii jiraan dad runtii igu soo canaantay oo igu yiri arrintan maxaa la yiraahdaa maxaad u keentay social media ayaan rabaa in maxaa la yiraahdaa ayagana inaan arrintaas u faahfaahiyo oo jawaab yar ka yar intaan faahfaahinta ayadaan u galin ayaan rabaa inaan maxaa la yiraahdaa runtii idin sheego arrin kale oo cusub oo news ah runtii arrintaasoo aad iyo aad idin farxad gelin doonta dhammaantiina aad ku farxi doontaan arrintaas oo ahayd inaad dhammaantiin wada jecleedeen sida commentiga aad igu soo qorayseen runtii aan ka arkayay oo ahayd aniga iyo ifraax inaan dib u kulanno ama aan dib isku maqalno runtii waa ayna dhacday dib ayaan isku maqalnay runtii waxayna ii soo qortay runtii waxaa kaloo too jirtay asxaab fara badan oo arrintaa iyada ah aada ugu xumaatay oo igu tiri maxaa u keentay arrintan social media arrinta social media sababta u keenay sabab kale maaha waa runtii aniga markaa waxaan dareemaya caburnaan fara badan waxaana is iri waxa kaliya ugu nafisi kartaa waa kaamirada horteeda runtiina kaamirada horteeda ku nafisidaan ku nafisay kuma aanan khasaarin waayo waxay sabab u noqotay inaan fiidiyogan kale aan idin soo sameeyo oon maxaa la yiraahdaa fiidiyogan maanta aad u quruxda badan aad ila daawanay taasna runtii nafisaadaas aan nafisay runtii waxay sabab u noqotay inaan maanta mar kale fiidiyo aan soo sameeyo ama muuqaal aan soo sameeyo waayo waxaan dareemay garab istaagiina waxaan dareemay dhiirigelintiina waxaan dareemay welibana inaad idinkaba aad ila damqateen saa awgeed ayaan aniga halkan usoo fadhiistay oon uga soo hadlay arrinka iyadaa إن شاء الله تعالى ورجينا يا سيدا هوريدك وشيء معلومة صوص على طول بيدمو إن شاء الله تعالى والله يا بقاركين إن السويدي سان حتى سيدا الدكسيمة بدنا عضو أخبش المحاوية كلنكا يولي بنا إن السويدي سان سؤال دورة أو كبدن إنتاس لكن دي إجران دبنا على سؤال نوع السويدي نايا رنتي qaabkii aniga iyada aan isku haleelnay iyo qaabkii maxalliga aan isku maqalnay iyo waliba qaabkan ugu ogolaaday inaan kulan yeelano muuqaalada soo socda hadduu eebeedmo ayaga faahfaahsan oo dhammaystiran kusoo gudbin doona hadduu eebeedmo insha allah koleeta muuqaalkana waxaan ugu talagalay waxay tahay muhiimad ugu horeyso muuqaalkii hore aan soo gudbinayo muuqaal ka duwan inuu yahay muuqaalkan runtii dadka aadka runtii igula damqadayna inaan halkan tusiyo ugu cadeeyo inay hadda ka bedelantahay xaaladii hore muuqaalkana sababtaas ayaan usoo duubay rajaynayaa muuqaalada soo socda oo xiga inaan anaga oo wada jir ah halkan kasoo wada muuqan doono anaga oo wada jir ah ayna arki doontaan insha allahu tacaala kolleyta hadda waan wada hadalnay wada hadalkeenuna weli wuu sii socdaa ilaa aan ka gaarayno go-aanka ah inaan idinka idin hor imaano insha allahu tacaala way noqon doontaa khayr ayayna ku dhamaan doontaa sida aan rajeynaya insha allah muuqaalkana ma jecel runtii inuu aada usii dheeraado oo aada usii bato
dhammaantiin marka ugu horeyso mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. haddii aad halkan soo gaarteen waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan oo waqtiga qiimaha leh aad igu siisay oo aad usoo daawatay muuqaalka. insha allahu tacaala tani muuqaalka xig intaan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sida iyo nabadiino. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.